bulshada ku dhaqan degmada Xariirada ee gobolka Salel ayaa ku hambaliyay shacabweynaha Soomaaliland sidii dal jacaylku ka muuqday ay uga qayb qaateen doorashadii ka dhacday dalka iyagoona sheegay inay Soomaaliland ku daydaan wadamada Afrika dimuqraadiyadda gaamurtay ee ka tisqaaday dalkooga waxayna sheegeen shacabka reer Xariirad isla markaana ay tibaaxeen in doorashadani Soomaaliland u furi doonto iridaha aqoonsiga ee ay muddo raad gurayeen shacabka Soomaaliland waxaana dadweynaha fikirkooda ka dhiibanayeen hadaladoodii u dhignaayeen sidan taasan u rajo dhownahay oo wali imika lama sheegin waana la sheegi doonaa cidii timaado baan u hambalyeynaa haduu ilaahay ku soo dhaweey telefishinkan caalamiga ee Ariel TV kana dhiibo fikirkaaga gaarka guud ahaan doorashadii ka dhacday Soomaaliland mid qaab nooceeya ayay uga dhacday dalka Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh doorashadii si fiican oo nabadgelyo ay u dhacday wixii soo baxana waa ku faraxsanahay wax dhiba iyo wax dhashashiin midna ma jiraan sidaa waan ugu faraxsanahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waa qaar kamid ah gaadiidleyda degmada Xariirada gobolka Salel oo aan igana wax ka weydiinay doorashadii 13 November ka dhacday guud ahaan Soomaaliland iyo sidii ay u dhacday alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam midda hore waxa weeyaan alxamdulillah si fiican oo nabad ayay ku dhacday taas oo tii aan rajaynaynay laguna yaqaanay Soomaaliland iyo nabad maxay ahayd ay ku caalamaashay nabadda iyo horumarka sidaa darteed waxay magaranaysaa qaateen dariiq fiican oo ah inay si nabadgelyo ku dhacdo gobolkan waliba Xariirad boqolkiiba boqol maxay ahayd si nabadgelyo ku dhacday oo bila qaaqula aadna maxay ahayd ay dadku maxay ahayd si kalsooniya ay codkooda u dhiibteen oo nabadgelyo oo amniya oo maxay ahayd qaaquush iyo midna aanu jirin waxa alla wax ku jiro oo jirin waqti wanaag iyo nabadba ku dhaayay magaranaysaa walaal ku dhamaad sidaa darteed waxaanu sheegaynaa waxaanu hambalyeynaa guud ahaan Soomaaliland oo dhan dhammaan sida ay uga dhacday gobolada dhamaantood waan hambalyeynaa iyo guud ahaanba gobolka Salel iyo Soomaaliland say uga dhacday bismillahir rahmaanir rahiim horta doorashadu maanta si fiican bay u dhacday tumaanta oo kamida oo noocana wali lama arag marka waxaan ku rajeynayaa in khayr ku dhamaato khayr maadaama khayr ku dhamaatay ninkii helana hadii uu helo wadani iyo haduu kulmiye helaba waa isku midkii ah helaba wana saacabaynana marka adigu ma kamid tahay dadka fariimaha beenta baahinaya ee xisbi hebel beenta helay oo imsa fariimada ayaa dadka gaar ahaan laakiin ima si fiican maanta ay u dhacdo si nabadgelyo aan dagaalna ka dhicin sidaas un baan ugu rajay ku soo dhawow sadiiq waxa uu kamid yahay dhalinyarada wax ka barata jaamacadda Camuud ee gobolka Awdal ee waxaanu ka dhiibtay dareenkiisa bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil alamin waxa mahadis kale ilaaha sida nabad ah noogu dhamaystiray waxaan u mahad celinayaa gaar ahaan xukuumadda waxaan u mahad celinayaa komishanka doorashooyinka qaranka waxaan u mahad celinayaa bulshooyinka Soomaaliland ee jecel nabadda iyo horumarka waxaan sheegayaa in doorashada Soomaaliland ay tahay mid ku dayasho mudan waxaan sheegayaa inay Soomaaliland ka qaadatay baal dahaba geeska Afrika oo ay tahay wadan lagu daydo oo ay tahay wadan u qalma in ay xorriyadeeda hesho oo ay tahay wadan u qalma in ay ictiraaf hesho mahad baan u qabnaa iyo toban oo mahad qabnaa dalka yagii ilaahay nabadii aanu dagaalaan oo dhacday waan ku mahad qabnaa ku dhaqan gobolka Salel magaalada ganacsiyeedka degmada Xariirada gobolka Salel waxaanu ka weydiinay telefishinkan caalamiga ee Ariel TV oo saaka afkaartooda ka weydiiyay sidii ay uga dhacday doorashadu guud ahaan Soomaaliland mid kamid ah barayaasha dugsiga dhexe ee degmada Xariirada waxaanu wax ka weydiinay doorashadii 13 November ka dhacday dalka iyo guud ahaan beesha caalamka ay naga filaysay bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillah doorashadu wanaagsan ayay uga dhacday gobolka Salel gaar ahaan degmada Xariirada si fiican oo nabadgelyo ay uga dhacday wax dhibaato ma jirin وعبد المجيد إبراهيم مومن أريال تي في دقمة حرير